الخطيب البغدادي nin caalima oo funuun badan caalim ku ahaa fanu lxadiidna alxaafidu fii casrihi ahaa isagoo baqdaad jooga ayaa waxaa loo sheegay baqdaad inuu soo galay sheekh la yidhahda ismaaciil ibnu axmed الdariir ismaaciil ibnu axmed الdariir waa kitaabka bukhaari la yidhahda ragga wariyey kashmeheni ayuu raggii ka wariyey ka mid yahay markii loo sheegay ayuu wuxuu soo kaxeeyey ardadiisii ama culamo kale ay wada socdeen bayse soo raaceen wadaadkani waa safar nisaabuur buu ka yimi makuu ku socdaa safarkani wuxuu joogayaa habeen ama 2 habeen ama 3 habeen magaalada waana safar socota waxa ay rabaan sheekha socotada ah in laga reebo kitaabka bukhaari iyo dhammaantii bukhaari maca mukararaadkiisa marka lagu daro 7,000 oo xadiis buu ka badan yahay 7,000 oo xadiis baa waxaa la rabaa in laga reebo qof socoto ah oo safar ku jira habeenkii koowaad bay u yimaadeen maqribka ilaa salaadii subax ayay ku akhriyeen yani salaadii maqrib markii laga baxay bay akhriska bilaabay alkhatiib albaqdaadi baa akhrinaya sheekhuna kitaabkiisu haystaa wuu u saxaya ardada kalena kutubtooda ay haysataa way saxanaysaa wixii uu sheekhu markaa tasxiixiyo waa la saxanaya wixii ishkaal uu ku jiro waa la weydiinaya waana la dareerinaya la wadaa salaadii maqrib buu bilaabay ilaa salaadii subax baa la fadhiyey waa la kala tegey habeen labaadkii baa laysu yimi salaadii maqrib baa la bilaabay ilaa salaadii subaxee dambaa la fadhiyey maalin saddexaadii goor barqaa baa la yimi barqadii baa la bilaabay ilaa iyo salaadii maqrib baa la waday salaadii maqrib kadib baa la bilaabay ilaa iyo salaadii subax baa la waday waxaana la dhameeyey kitaabkii bukhaariga ahaa waa 3 jalsadood ayaa waxaa lagu akhriyey mawsuucada imaam albukhaari warinaya 7,000 xadiid ka badan waxaa lagu akhriyay 3 jalsadood waxay tilmaamaysaa yani surcat alqira'a way sheegaysaa qira'adoodu say u deg deg badnayd waxay kaloo sheegaysaa siday u danaynayeen cilmigu uu qiimaa ugu fadhiya nin socoto ah in kitaabka bukhaari laga reebo lagu talagalay isla imaam khatiib albaqdaadi ayaa maka tegey wuxuu la kulmay gabadh lo odhan jiray karima bintu axmed almarwasiya oo iyana ka mid ah sheekii hore ardadii ay ka wada qaateen alkushmeyhani kushmeyhani waa raawiyat lbukhaari ninkii wax ka wariyey alfribri baa ah raawiyada bukhaari wax ka wariya kushmeyhani rawaadiisu ka mid yahay kushmeyhanigaasaa dariirka iyo kariimiba ka wada warinaya kariime markuu u tegeyna kariimi waa islaan gabowday oo 100 iyo dheeraad sano jirtay oo aan guursanin caalimad ahayd karima 5 jalsadood buu bukhaari ku dul akhriyey khatiib albaqdaadi 5 jalso 5 fadhi ayuu wuxuu kaga qaatay inuu ku dul akhriyo kitaabka bukhaari oo dhan alimaam ibn alxajar alcasqalaani ayaa waxaa la weydiiyey sidaa uu sameeyey khatiib albaqdaadi oo kale adigu marna qira'a ma samaysay wuxuu yihi maya laakiin aniga qiraa'adaydii bukhaari aan sheekha ka qaatay anigu 10 majlis baan kaga qaatou leeyahay 10 fadhiyo qura laakiin haddii la isku wada dari lahaa buu yihi 10ka fadhi ay xidhiidh noqon lahaayeen sidaa uu khatiib albaqdaadiba tiisu xidhiidhka u ahayd tiradu way ka yaraan lahayd buu leeyahay intuu ku qaatay in ka yar ayay noqon lahayd markaasuu hadalka sii wada wuxuu hi walakin ayna athuraya min athara laxuhu xidigaa la yidhahda xaggey ka joogaan ciidda waayo khatiib albaqdaadi buu yihi hiraayad akhriskiisu fii gaayati sixa waljawda buu ahaa buu yihi waa qiraa'o aada u saxiixa oo qurux badan bay ahayd buu leeyahy oo loo faa'iideynayana ardayda dhinacyadiisa joogta oo uu maqashiinayay majliska dadka joogo dhamaysa ay wax u saxdaan